horseeday way ducaysayihiin waynaan istiraayo muruqi naku deeqno u daraa hantideenno daacado la shaqeeyo ragga dawga horseeday way ducaysayihiin ragga dawga horseeday way ducaysayihiin waynaan istiraayo muruqi naku deeqno u daraa hantideenno daacado la shaqeeyo ilaahayna subxaana watacaala waxaynu ma isugu nimina ilaahay subxaana watacaala waxa weeyaan waa arrinta aynu wada garanayno ee waddada ah waddada markaa waxa weeye isku xidha wadaamago iyo markaa buuhoodla isku xidha ayaynu u nimi taas baynu u nimi walaalayaal hadalkaan oo soo koobaya waddadu waxa weeyaan waa waxyaabaha ugu muhiimsan ama waa mashaariicda khayriga ah ee waxa weeyaan adduunka iyo aakhiraba markaa waxa weeyaan lagu intifaacayo weeyaan ee qofku adduunyadana uu ku intifaacayo intuu nool yahay aakhirana markaa waxa weeye wixii uu gashado ee markaa maartay uu gashado adduun hadduu gashado xoog hadduu gashado cod hadduu gashado hadduu markaa waxa weeye wixii uu gashado uu ku intifaacayo weeyaan mashaariicda khayriga ee sadaqaadka ah ee biriga ah ayay ka mid tahay ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna leeyahay qur-aankiisa markaa maaragtay tacaawanuu cala albiri isu kaashada biriga iyo samafalka iyo taqwa iyo alla ka cabsiga isu kaashada walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan cadaawadda iyo colaadda ha isu kaashanina iyo xumaanta ha isu kaashanina ilaahay saasuu leeyahay markaa tani waxay ka mid tahay waddooyinka biriga ah bay ka mid tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad buu markaa maaragtay duruqda iyo waddooyinka iyo markaa maaragtay mashaariicda khayriga ayuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad uga hadlay nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu markaa ka hadlay maalmaha ka mid a ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa la tusiyey nin markaa waxa weeye jannada ilaahay ku jira oo jannada markaa dabaalanaya ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam la tusay ninkaasi jannada wuxuu ku kasbaday oo ku helay geed markaa waxa weeye waddada ku yaala oo markaa wartay waddada bartankeeda ku yaala oo dadka dhiba ayuu nebiga ninkaas waddadii ka jaray oo uu ka baneeyey marka waxa weeyaan sidaas buu jannadii ku galay oo ku helay marka qofka sameeya xoola gashadana dee waa ka sii weyn yahay wuxuu kale nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi iimaanka waxaa ugu sarreeya walaalayaal markaa qowlu laa ilaaha illa allah baa ugu sarreeya iimaanka maarata ilaahay la rumeeyo waa dhowr iyo 60 dhowr iyo 60 weeyaan laamood laabta ugu sarreysa waxa weeyaan qowlu laa ilaaha illa allah wa adnaaha imaadatu al-adaa can dariiq nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaana ugu hooseysa dhibaatada oo dariiqa laga leexiyo dariiq waa wadadan oo kale maxaan ku dhaaday wadooyinka yaryar oo kale la midka marka wadada tani dee ninka markaa xoolo geliya ee dhagaxa ka hagaajiya ee waxa weeyaan sameeya ee wax ku darsadaa waxa weeyaan wuxuu noqonayaa nin markaa waxa weeye kasbaday dheef aad iyo aad u weyn waxaan kaloo u mahadnaqayaa shirkadda hiirad oo uu injineerkii faarax xuseen imika inagala joogo oo waddadana ilaa maalintii ay bilaabantay tabarruc inagula shaqaynayey oo aan leeyahay ilaahay ha idinka jazaa'i siiyo shirkad aad u qiimo badan oo ummadda wax badan u tartay weeye waxaan kaloo mahad u naqayaa raggii bilaabay hawsha waddadan ee qurba joogga u badnaa ee ay hoggaaminayeen guddida ingiriisku gaar ahaan yaasiin maxamed cabdicarbooshe ibraahim dhimbiil iyo raggii la socday ee ku dhiiraday waddadan in maanta aynu dul taagannahay inay dhaqaaqdo ku dhiiraday ilaa maantana kharashka baxaya iyagu sanduuqoodii ka bixinaya ayaan si gaara ugu mahadnaqayaa oo abaalkoodana ilaahayna way ka helayaan ummadduna waa og tahay intaa kadib maanta waxaynu joognaa ballimadheedh waxaannu joognaa waddadii oo socota oo meel xaasaasiya maraysa waddadu wejiga hore wuxuu ahaa
in waddadii hore laga dhigo waddo la mari karo inta aynu waddada laamiga ah ay inoo socoto muddo imika bil iyo badha ayay hawshaasi socotay 60 shaqaale ah baa la geliyey shirkadda hiiradna way ku jirtay injineerkaa sharixi doonee ilaa 80% hawshaasi maanta waa gebagebo wejigii labaad baa la doonayaa in loo gudbo wejigaasina kharashkiisa waxa laga sugayay ummadda deegaankan waddadan magaceeda waxa loo bixiyay waddada nabadda waxa loogu talagalay inay isku xidho mustaqbalka wadaamago ilaa iyo buuhoodle waddadani waxay ahaan jirtay waddada Soomaalida oo dhan xoolaheeda inta badan isku xidha xoolaha ka yimaada gaalkacyo iyo hiiraan iyo kililka shanaad waddadii ay soo mari jireen weeye waddadani waa waddo ummadda iyo dalka iyo qarankaba halbowle u ah waddadaasi waxa keenay maanta marxaladdan gurmadka ah waxay qarka u gaadhay inay xidhanto maanta ilaahay mahadii fayskii koowaad waa taa lagu guulaystay dhaqaalaa laysi saaray dhaqaalaha waxa loo qaybsaday gobollo iyo degmooyin caalamka oo dhan dadka jooga ee u dhashay deegaankan ee muxsiniinta ah inay ka soo qayb galaan baa go'aanku ahaa intaanu ka war hayno ingiriiska si wanaagsan baa hawshaasi uga socotaa waxaanu ugu baaqaynaa dhammaan jaaliyadaha kale oo dhan Yurub iyo Mareykan iyo wadamada Carabta waxaanu rajaynaynaa in dad badan oo qaaliyo oo qiimo badan oo muxsiniin ay joogaan dhulka hawshana ay ka war hayeen isla markaana ay jiraan dad wax bilaabay waxaanu maanta halkan baaq uga diraynaa hawshaasu inay maanta la bilaabayo wejigii labaad oo wadaamago ka soo bilaabmi doona dhawaan waxaanu ku xidhan yahay kharashkii inaga laynaga sugayay bay hawshaasi ku xidhan tahay waxaanu u baaqaynaa in deegaan waliba iyo dal walba iyo qaarad waliba is-abaabusho guddi samaysato qorshaha waddadu waxa weeye in board loo samayn doono dhawaan laakiin inta ka horeysa dal wal iyo gobol wal iyo degmo waliba ay iyagu guddi samaystaan oo dhaqaalahooda urursadaan marka boardka la sameeyana ay cid waliba ku wareejiso deegaamadii Qorlugud iyo Wadaamago iyo Burco iyo Hargeysa hawshu way ka socotaa inkastoo lagu kala badan yahay annagu Burco hadaanu nahay waxa farxad weyn noo ah wixii nalaga sugayay 50% inaanu imika aanu ku guuleysanay waxaan rajaynayaa deegaan kastaaba inuu sidaas oo kale muddo dhow oo bil ka yar inaynu dhaqaali laynaga sugayay ee waddadu ku bilaabmi lahayd in lagu guulaysto oo cid waliba ay tallaabada qaado ayaanu baraarujinaynaa waxaynu iska heli doonaa gacan weyn oo ilaahay baa inoo fududayn doona dawladdu waa waqtigeeda laakiin waddadii inaynu bilowno wejigii horena waa guulaystay markaa waxaan kaga baxayaa baaqa aan u dirayo cid waliba inay hawsha kaalinteedii ka gasho waa hawlasha sadaqa tujaariga ah waxaan isleeyahay ummadda muxsiniintu waa ku badan tahay aad iyo aad baan idin rajaynayaa inaynu guulaysan doono insha Allah والسلام عليكم ورحمة الله والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إلهي بام هذا سكاله ما هذا لسوكو بكرين الله عليه سبحانه وتعالى السوق كاني بالي مريض خيار وحجرت علماء مدنيال مرويين إلهي با isugu keenay ballimareed halkaas oo ay ka socoto shaqadii wadada hadaynu amalka inoo qabsoomay iyo hawsha inoo dhaqaaqday iyo waxqabadka aynu ilaahay ugu mahadino waxaad ogaataan in ilaahay inoo siyaadinayo inuu alxamdulillaah rabbil caalamiin horta dhaan ilaahay baa mahadda iskale waa tawfiiq min Allah waqtiyaa jiray badan oo laga hanti badnaa xilligan oo laga qaaraan in la helo qaaraan wanaagsan ay ka haboonayd laakiin tawfiiq lama helin maantum baa ilaahay tawfiiq keenay Allah subhanahu wa ta'ala ayaana mahadda iskale sida daraadeed
wacdi iyo warbixin labadaba waa la dhameeyey. waxaan halkan baaq uga diraynaa dhammaan deegaamada Qorlugud wadaamo labada degmo qurba joogta dhammaantood waxa weeyaan Hargeysa gudidii Hargeysa Taburco dhammaan waxaynu meel kasto ay joogto jaaliyadaas beesha hadda halkan fadhida waxaynu ugu baaqaynaa waxa bilaamaya fayskii labaad. fayskii hore waa lagu guuleystay wadadii waxa weeyaan way qabsoontay fayskii hore in wadadii laga dhigo wado roob iyo jilaal iyo guba la maro inay taa hore noqoto inta dambe inoo bilaamayso way inoo qabsoontay. tii labaad baa inoo bilaamaysa fayskii labaad ee wadada inoo bilaamaya. fayska labaadna wuxuu inagaga xidhan yahay sidaynu jeebabkeena uga soo saarno dhaqaalaha. marka aynu isku tashanno ilaahayna aynu tawakalno taladana ilaahay baa iska leh. cid kasta waxaynu ugu baaqaynaa oo ku boorinaynaa inaan waxba lala hadhin ayaynu ugu baaqaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi saaho aniga qudhaydu ereyga suugaanyahan iyo abwaanna maan ahayn laakiin muhiimadda wadada tan aan ay leedahay bay saamayn aan isiri wadadu baa saamaynta kugu yeelatay baan isiri war in yaro warbixinaho wadada baa ugu horeynayso waftigan marayo war fidiyoonkow wadadii nabadaynu joognaado walqasheedu waa tii wadaamago ka dhacdo wajigii xigay baan isugu nimiyo wixii soo kordhaynu eegayno wataa wacane wadaahiyo wanaag baa inooga muuqanayo wax qabadkeedii waaga ka cadaayo weyna mahadiisa weeyaan bay tii waasi iyo walaaca kii qabay wadaanu dhisaynaa waali la ahayde inaan wax la qaban karaynin moodayiyo wax matare dhimay warkiisiyo wuxuu aaminsanaa ragbeeneeyo waa taa wacane wadaahiye walwaaliye tagaysa webiyada oo wanaag baa inooga muuqanayo wax qabadkii waaga ka cadaayo weyna mahadiisa weeyaan waa taa wacane wadaahiye wiishashkii qodayay ceelasha iyo wadooyinka kuwii sameynaayiyo waaraad iyo candhamaydla marino ahoo wajeer iyo waamakii ka yimi wadarba Soomaaliyo idilba wanaag ku maraysay wiigagano ducada wadacaysay weerasano warkeedii meel fog buu tegado wanaag baa inooga muuqanayo wax qabadkii waaga ka cadaayo waa taa wacane weyna mahadiisi weeyaan waayahay waxa maalin dhexdaas soo maray baa la igu yiri wadada nin wasiiraho reer buu hoodla wadada cusub oo wax qabadkan laga qabtay buu maray ninkaasi wuu ku farxay wadada warbixinna buu hoodle iyo deegaanka Qorlugud anigu ma araga sida aan wararku igu soo gaadheen wuu sheegay marka ninka waan ku yar xusay halka aragtida la iga siiyay wasiirkii maray wadada aragiyo warkeeda buu hoodle gaarsiiyo wax qabad baa loo gudoonsadado wada jir baa hawshan loo qabano walaalays weeye wada dhalado war xumatashiil walaalays weeye wada dhaladkii war xumatashiilku kala weecsho waswaaska ka saaraysa wada noolkii waqii abid guriga wada yiila wiil iyo abtigii ahaan jirado wax wacan baa inooga muuqanayo wadadani tii nabadda weeyaan bay tii fariin yar baan markaa halka aan isiri aad ka dirteeno muhiimadda wadadani leedahay saameynayso aad u dirteen dawladda iyo xukuumadda fariinta yar markaa waxay ku socotaa golaha fulinta ayay ku socotaa warkaan diraynaana wuxuu fariinta waxa diraya mujtamacan iyo deegaanka ayaa diraya warkaan diraynaana wuxuu yahay
warbaahinta warkaan diraynaana wuxuu yahay warbaahinta si dhex maraya wadankaba meesha laga warkaan diraynaana wuxuu yahay warbaahinta si dhex maraya wadankaba meesha laga maamulo iyo wasiiraha gaara leeyahay wadadani waa walaalays wadankuba waa u baahnaa waqti horay ahayd samaynteed wadiiqooyin kaleaynu raacaynay wada jirka tii horseedaysiyo wadadii Buuhoodle weeyaan bani wada jirka tii horseedaysiyo wadadii Buuhoodle weeyaani waxba bayaan laga horeysin marka qolada fulinta waxaanu leeyahay wadadani wadiiqooyinka kale Buuhoodle iyo deegaamadan iyo mujtamacan waxa la og yahay waxoogaa baram lama dadku yiraahan nabadgelyo xuma taala la yiraahdaa Buuhoodle iyo deegaamadan nabadgelyo xuma ma taalo waxa ka dhacay wadanka oo dhan bay ka dhaceen oo gudaha Buuhoodle ka dhaceen waxay ka dhaceen ceelaf weyno dhulka oo dhan way ka dhaceen marka nabadgelyo xuma ma taale waxa taale dadkan dhexdiisa wada xumo iyo isdhexgal la'aan ba taala wadada u sababa marka wadiiqooyinka kale la marayay waxay tilmaamaysaa wadiiqooyinkii loo marayay nabadda waxa ka toosan wadadaas oo la sameeyo oo ummadan reer Buuhoodle iyo dalkan isku xidha marka wadadani wadankaba muhiim bay u tahay gabagabeynaysaa oo xusaysaa cidii wadadan qaybta ka qaadatay oo dhammaanteen dadkan xataa maanta halkan jooga uu ka mid yahay waayo te wadada u yimaadeen meesha dadkani halkan waqtigiisii wuxuu ugu soo bixiyay wadada weynaha rabbi baa wax qaybinayo wixii qabtaba weynaha rabbi baa wax qaybinayo wixii la qabtaba darbaa mudano wanka iyo tuuga soo galabay jir waqtigoodii kuwa soo jaray kuwa waqafka wadada ku baxshay waxa la cagelaysa soo diray wadada wiilasha wanaajinaya warmaha la dhacaya buuraha hablahan weerane waxay haysteen iyo wadada gelinaya dahabkii hablahan weerane waxay haysteen iyo wadada u gadaaya dahabkii wadaha biya waraabinaya uu Muuse meesha kaga tagay walaqadka carbooshe uu dhalay iyo walaalka Ibraahin iga mudano weynuhu waayahay u kaadshee wankiina injineerka weeyaano wuxuu ka qabtaa wadada sugano wadadani siday ahaanaysiyo waaniyo talabayna siibaan waayahay waaniyo talabayna siiyo weerse uu yiri wax garad horeeba waxay tiri waa intaasoo loogala dhawaada wax garadka iyo kii waxeli karayo waxaynu hayno ma isu geynaado wadadu tii nabadda weeyaan wadarteen ma wada midownaabay tii ku soo gabagabaysay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qaybaha iyo isku xidhka iyo si array uga qaadataan su'aasha ugu horeysay la isweydiinaya waa maxay wadadani maxay tahay hadii la isweydiiyo hortan waa wadadani waa wadadee waa hore loo sheegay wadadani waxa weeyaan jiida ay ku taalo waa la sheegay waa jiid aad u muhiim ah waa wada qaran marka la soo gaabiyo waa wado heer qaran weeyaan waa wado isku xidhaysa degmooyin iyo gobollo iyo dhul muhiim ah oo dadkii iyo xoolihii aynu ku nooleynba ay ku dhaqan yihiin dhulkii daaqa iyo deegaanka xaqiiqda ah uu ku harsan yahay maanta marka wadankeena la qiimeeyo ayay wadadani maraysaa waxay ku xidhaysaa kilarka shanaad oo aynu deganahay waxay ku xidhaysaa Soomaaliya isku xidhaysaa iyo inaga magaalooyinkeena waaweyn waa jiidii xoolaha waana laga waramay xaaladeeduna waxay soo gaadhay inay xidhanto waqti biyo badan bay wadadani soo martay hase ahaatee maantadan maalin ay ka muhiimsan tahay ma jirto deegaan ahaan iyo dal ahaan guud ahaanba siday tahay iyo isku xidhka intaas u meelood aynu ka sheekaynaynay maanta ayay ugu muhiimsan tahay maadaama wax kastaaba ay naga burbureen oo ay wixii aynu soo marnay aan imika loo baahnayn inaynu sheegno ama dagaal ahaa ama dhibaatooyin ahaa ama dawlad xumo ahaa ay wax waliba ku burbureen waxay noqotay wadadani inaan farifool ma dhaqdo
inaan qof keliya oo jecel inay hagaagtaa waddada aan waxba ka qaban karayn sidaa awgeed maadaama waddadaasi waddo qaran tahay oo ay muhiim tahay qof walba dhib bay ku haysa qof walba xanuun bay ku haysa intaasoo umul ah ama intaasoo qof dumara oo caruur dee markaa laga yaabo in fooli qabatay oo dhibaato ku timi oo laga yaabo inay jidkaa ku dhimatay intaanay dhakhtar gaadhin baa jira intaasoo dada oo ama dhaawac ama dhibaatooyin dadka dhexdhacay oo waddada gaadhi waayay halkii lagu daweyn lahaa baa jira waxaasina waa waddada taa iminka hadalka oo cali dhambiil inoo sheegaya gabayga dadka waddadani waa hunguriga qofka bini aadankii hunguriga ayuu wax ka liqaa hadduu hunguriga qofku beelo jidhka intiisa kale ma sii noolaan karto waddadu waxa weeyaan waa hunguriga nolosha xaqiiqda dhabta ah wixii ka dambeeyaana ma sii jiri karaan dadka u baahan in warka inay midoobaan inay heshiiyaan inay iyagoo dad walaala isdhaqdaan waxaa ka mid ah isgaadhsiintana waddadu koowaad bay kaga jirtaa telefoon isgaadhsiintu maaha waddadu sidaa awgeed waddadani waa waddada noocaasa sidaa awgeed qof walba xanuun bay ku haysay maantunbaa ilaahay tawfiiqiisa keenay in la garto in waddadan wax laga wada qabto waxaynu u ducaynaynaa dadka bilaabay ilaahay khayr ha siiyo iyagu qaybtii ugu horreeyey horaa loo bilaabay waxaan ogaa wakhti badan oo odayaal badan oo jiidda ka mid yihi ay bilaabeen oo jeclaayeen inay wax ka qabtaan wixii ay qaban karayeen way qabteen laakiin tan maanta abaabulkani halkaa muu gaadhin weli halkaa muu gaadhin waa wax ilaahay loogu mahadnaqaa waddadani waxay iminka ku timi wafdiga ingiriiska ka yimi ee odayaasha ah ayaa abaabulkooda inoo bilaabay iyagaa ciddii ay khusaynaysaba ama hargeysa ha joogaan ama burcaha joogaan ama ha joogaan deegaanka intiisa kale bilaabay aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin ilaahay ka abaalmariyo waddadan ilaa hadda waxa wada deegaanka xaqiiqdu waa sidaa waxa deegaanka gaar loola hadlayaana waxa weeyaan maadaama ay deegaanka dhexdiisa dadka dhexdooda marto waxay aad u sii khusaysaa deegaanka iyadoo waddo qarana oo lagu leeyahay dawladda waajibkii ay lahayd inay ka qaadato oo lagu leeyahay hay'adda wadooyinka horumarinta wadooyinka in ay waddada intaasoo shacab iyo intaasoo ummadihii iyo intaasoo xoolaa iyo intaasoo cashuuri ka soo gasho inay wax ka qabtaan haddana waxay sii taabanaysaa deegaanka may ahayn maanta in la yidhaahdo waddo deegaanka weeyaan laakiin xaaladda aynu ku jirraa sidaas ninaan hadlin habartii wax ma siiso haddaanad adigu marka hore kicin oo inaad joogto oo jirto oo aad wax qabsan karto oo aad dareensan tahay xumaanta iyo dhibaatada ku haysata ka damqanayso haddaanad adigu marka hore sheegin cidna kuu sheegin saasunbay taa iyo boqolaal ka mida baa jira waxaan doonaya inaan yar saxooyin yaroo ah qalabkan halka yaalla ee aan noo ku shaqaynayno hiradoo keliya ma laha hirad qayb bay ka mid tahay laakiin waa qalabkii guban iyo xeeb waxaa ku jira 3 urur muhaam la yidhaahdo iyo ururka dhakhtarka jarmalka ah iyo hirad 3daasaa isugu kaashaday marka halkaa waxaan doonaya inaan yaro saxo 3daasba guddiday ku jiraan qalabkan waa qalabkii aanu ugu talagalnay in berbera dadka xidhan ee xeebta ku xidhan ee awrta ilaa dadaa ku guura ee karin iyo xiis iyo raaribuul awrta ka soo safray burco iyo hargeysa ku yimaada ayaa 3dayadaa group aan ugu talagalnay in la furo waanaanu furnay ilaahay baa mahad leh waxana way noo harsan yihiin taas baa iyaguna ogolaaday markay arkeen abaabulkiinii deegaan ahaan ayay go'aansadeen inay iyaguna halkooda ka soo kacaan oo yidhaahdaan waa waajibkii qalabkan loo abuuray aynu ka qayb qaadanno markaa 3daa urur runtii ayaa mahadda leh hiradoo keliya maaha farsamada un baanu uga badannahay taas waan yar saxayaa waxaan leeyahay halkaa deegaanka waxaan leeyahay nin kasta oo baaqan waxaan ku darayaa nin kasta oo qof kasta oo warkan ama daawada ama jiid ah ama maqla ama dee islaama ama somalilaana ama muslimba ah in uu waddada culimmadu inoo sheegtay khayrkeeda ku jira inuu ka qayb qaato oo ka soo qayb galo laakiin waxa loo oran jiray muxuu yiri walba heblay ka walba heblay adigu siika waxa weeye deegaanku waa inuu ahaadaa halka haanigun bay ka tolotaa
deegaanku halka ay ka dhaqaaqayso weeyaan haddaan raggaasi ina dhaqaajin oo nin walba luqad gaar ay kula hadleen annaga waxbay nagula hadleen qolo kale waxbay kula hadleen qolada reerkiisa waxay laamiga waan maanta dhigaynaa waxaasoo dhan kicinayaa abaabulbe kicinayaa abaabulooyado haddaana dadku qof waliba luqaddu ku hadlaya aanad kula hadlin isaaf garan maayaan iminkana 100 luqadood baynu ku wada hadalnaa 100 luqadood kala jaaday inagoo meel u wada jeedna waxaasoo dhan waxa weeyaan waa halka dadkani ummadani gaadhay waxaan leeyahay qodobka deegaanka isaga intaasaan ku dhaafayaa ururadaasina wixii ay idinla qaban karaan iyo inta kale inuu rajaynaynaba iyaguna waa diyaar idinkuna ka kaca waxa weeye wadada qorshaha loo dhigay waxay ahayd raaliga hada maraa ku yareeyay hadalkii wadada qorshaha loo dhigay waxay ahayd markii odayaashaas kiciyeen anagu qoladii farsamada ahayd ka soo qayb gashay baanu ahayn wadadu waxa weeyaan marka ay dhismaha laga hadlaayo dhismo wax la dhisaa waa wax la isu keeno waa ciid iyo qori iyo dhagax iyo deedna waxbuu noqdaa guri buu ama noqdaa buul buu noqdaa beebe buu noqdaa waduu noqdaa waa wax la isu keenay oo meel kale kaana macnaheedu la isaga keenay markii wadada laga hadlaayay iyagu waxay jeclaayeen in laami la bilaabo markiiba laakiin libaaxnimo aan aqoon baa la xiriirta waxa weeyaan wadadu waa qaali aad iyo aad bay qaali tahay qaali waxay ku tahay halka kiiloomitir ee imika wada ee rasmiga samaysan marka xaqiiq ahaan idin sheego waxa soo oranaysa ninkani been buu idin sheegaya waxa lagu qiimeeyaa adduunka laakiin taa u sheegi maayo waxaan u sheegaynin waa xawayaan dad badan in jab ku jirto ayaan sheegay waa dhaafaya qodobka waa idinka dhaafaya kaasi way noo qarsoonaanaya waxa weeye wadadu waa qaali marka alaab qaaliyana waa lagu sameeyaa qalab qaaliyana wuu galaa sidaa awgeed wadadii waxaa la yidhaha in wax ka qabanno waa la go'aansaday horta waxaa la isku raacay oo aynu isku wada raacsanay wadadan in wax laga qabto su-aashii waxay noqotay sideebaa wadada wax looga qabanaya sidaynu wadada wax uga qaban karnaa halkaa waxa yimi markaa qof og iyo qof aan ogeynba waxa daruuri ah wixii runtun baa la isugu imanaya oo runtun bay noqonaysaa waxay noqotay wadadani in la yidhaahdo bal horta wadadan marka ugu horeysa dee waynu noolahay maanta waynu jiraa waa degannahay gawadhidii maanta maraysaa berri maraysaa haddaa roobdaayaa saadamba wax kale idin noqonaysaa dee horta haddaynu leena saacadan baynu ka talin karaynaa inagu wixii maqan ilaahay baa og marka waxay noqotay qaybta ugu horeysa horta wadadan hadda hala joogto sidii loo mari lahaa filgeed hadda inaan la mari karin oo dhul badan la mari karin waa xaqiiq marka halka ugu horeysa aynu qaadanaynaa waxay noqotay war wadadana aynu ka dhigno wada la mari karo talabaad ee soo gashayna waxay noqotay wadada waa in waqtiga roobka iyo waqtiga jiilaalka iyo waqtiga xagaaga la mari karo ilaa imka tan baynu haysanahay waxaynu hayno ama aad saarteen ama aynu haabanayna waa waxaynu ognahay waxa laga yaabaa hadayna niyad ku darin inta qudheed inaanay wax badan aanay samaynin laakiin waxa qaaliya oo aad iyo aad u qaaliya oo wax walba adduunyada ka qaalisan waxa niyadda la yiraahdo iyo go'aanka casiimada qofku hadduu wax go'aansado oo yiraahdo waxaan waan qabanaya oo uu daacad ka yahay ilaahayna uu la qabtaa xaqiiq ahaan halkan waxaan doonayaa in idin sheego go'aan umadeed baa qaateen go'aan umadeed baa la qaatay wadaamaga lagu qaatay dibadda laga soo qaatay go'aankii umadeed ee deegaanku kow ka yahay wuxuu noqday wadadaas inay samaysanto kii labaad wuxuu noqday wadada qaybta koobaad in waqti kasta la mari karo tan aynu iminka wadnaa ee aynu odayaashu ay ka hadlayeen waa taa waana gebageba insha allahu tacaala bil iyo badh inta kaarta iyo qorilugud ka hadhay ayaa u hadhan waana la mari karayaa waxaanaynu rajaynaynaa insha allahu tacaala iyadoo oo roobku da'ayo oo daadku soconayo meel walba buuxdo in laga gudbi karo balimadheed iyo kuwan kale ee la mid ah ciidana aynu u talin karno ayaynu samayn waxaa ka mid ahayd qorshaha wadada in dhalinyarada jiida la tareengareeyo in loo tababaro qaabka wadadan looga shaqayn karo qaabkan wadadan 60 inan baa wadadii loo qoray 4 meelood baa loo qaybiyay 4 meelood ee loo qaybshay wadaamago ilaa qorilugud baa loo qaybiyay 4 meelood ee loo qaybshay wax cajiib ah oo ka soo baxay runtii waxaan aniga ninkayga odaygii weyni imika wax 40 sano ku dhowdhowbaan wadooyin ku dhex jiray weli maan arag xaqiiqda dhabta weeyaan
wallaahi inaanan weli arag intaa in leeg training yar baanu siinay maalin keliya dad sidaa u shaqeeya oo dhagaxa intaa leeg iyo dhul buuraha intaa leeg gacan ku baneeya wallaahi inaanan arag intaa taasina waxay sababtay inaanu anagu guddidii burco ku noqono oo nidhaahno maadaama sidaa dadkii niyadiisii sidaa tahay oo shacbigu intii aan imanin intanaa wakiilka ah 60 inan oo 15 ilaa isu qaybiyey ha kala wanaagsanaadaan way kala fiicnaayeen xaqiiqahan laakiin buurta ragga jeexay ee kala baray iyo wadada aan soo marteen cidii soo martay way soo martay waxa weeyaan waa inama deegaanka kamid ah oo dhalinyaro dadkeena ku jira waa tamar waa aqoon waa xoog inaga aasnaa oo inaan isticmaalayn يا واحد كوب أبشرتان وكوب فرحضان إن المدينة أيهين مانتا رج وضع سمين كرا والله وهالين كرا وحيبقى هين اللي شوكتي وضياشة يجودي ذا برع يكوا هرجيسة يكوا إنجليز كا يكوا يورو وردي ماشي دونا شروش جالين وحينولين هاي لحدا كائنا وده وين لو شوكتي وجو حاجة إنه WFP يراشين يشيف كأنه كشوكتينا طبيعتنا وحينقونيسا وده لامي كما دعدا وقت والبا إنه ما ذكرنا أين لامي وحبا وقونين حقيقة سينقونيسا وحوي حدانا تدقوا اسكو كلسونانين oo inaad wax qaban karto aan isku kalsoonida aad wadaada aanad ogeyn waxa weeyaan waxba ma qabsan kartid intii yarayd imika hadda way shaqeynayaan shalay too halkan aanu keenay dhinacaas dhagax la dhigay 2 saacadood gudahood 3 saacadood gudahood ayaanu taana ku jeexnay wixii dhagaxa intay soo rareen bay taa dhigeen taana way salaxeen way ogleen 2 saacadood ka bacdina aragawadi waanu saaray meedan soo gaareen dhagax cad baa saaka yiilay meesha wuu daboolmay intaasay waxa weeyaan 10 inan bay ahaayeen oo kaliya yaani awooddaas ay inagu jirto oo inagu qarsoon oo aynaan ogeyn iyaguna way tababarteen oo imika nin waliba wuxuu isu dhigay nin shaqaalaha wuxuu isu dhigay waxa wadada aan ku soo gabagabeynaya aan leeyahay dayactir joogtaa bay u baahan tahay dayactirka ay u baahan tahay sibir maaha waxay u baahan tahay majarafad iyo madara iyo keeriyoone iyo inankii waday bay u baahan tahay iyo buuxin maanta roobku markuu halka jeexo wadada jeexo inuu dhagax iyo dhoobo aynu ula tagno balaami anigu laami ka hadlimay laamiga uma imanin waxaan ka hadlaa tan joogteen ka hadlay berigeenu laami gaadhno ee aynu waxelo markaas calalaheeda markaana dayactirka waynu u baahanaa laakiin taa maanta aynu dhamaynay oo bil iyo bar insha Allah taala ama bil hadday ugu badnaato qaadan doonta oo aan ku rajo weynahay basra iyo ciidankeeda qoriluud ka imanayaan inay ilaa qoriluud la soo gali doonaan 60 kan inna la soo qaadi doono inaan 20 casho bay nagu qaadanayeen baan maray inta hadhayna insha Allah taala waayo reer qoriluud qudoodu aad iyo aad bay u shaqeeyeen gudi basra ka mid tahay oo shana waxay hayaan 4 bilood inamadii ka shaqeyn lahaa 120 qof ayay u hayaan oo hay'adahan waxay iyana rabaan inay ilaa kaartada soo gaaraan intaas hadaynu qabanno waxa weeyaan waa dariiqii koobaad waa talaabadii koobaad ee wadadan ahay talaabooyinka kale odayaashu way ka hadleen taasi waxay ku xidhan tahay sidii laysoo abaabulo sidii wax loo helo deegaanka oo kaliya wadadan kaliya laami kama dhigi karo kaligiina ma wada dhamayn karo laakiin tiir dhaxaadkii lafdhabartii uu ka yahay oo uu ka noqon karaa waxa weeyaan waxa loo baahan yahay qaybta dawladda waa inaynu odayaal siyaasiyiin wax garad waa in laga doonan karaa oo laga keenay qaybtii dawladda wadadan ay ku lahayd waa in laga doonan karaa loo hadli karaa wixii deegaanku diyaarayana iyana waa meesheedii waa wanaageeda waxa markaa aan ku soo xidhayaa insha Allah taala talooyinka aan siinayo deegaanka ama wadayaasha waxa kamid ah inamada ama dadka la tireengareeyay ama kuwa qoriluud ha noqday ama kuwa kale intii la joogteyn karo hal la joogteeyo ee waliba loo doonayo karo ee WFP raashinkeeda iyo wixii la mid ah hana loo kala qaybsho jiida wax badan oo aan wax ka qaban karin baa jiro ciida iyo gobol waxyaabaha qalab u baahan ciidan faraha badan leh ama meelaha boholaha ama marka biyo jeexaan laakiin imika hadaynu wada dayactirno meel walba waxba laga qaban karaa waana magaalooyinka ayaa la dhigayaa wadadaas dayactir bay u baahan tahay waxaanan ku soo xirayaa ilaahay baa horta mahad leh aad iyo aad waxa thumma mahad leh dadkii waxaan hawsha ka qabtay arinta halka laga sii wado hadaa idin waxa soo dhan gobolkaas qabsaday aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa raallinayga amiin
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم dhammaantiin waa idin salaamayaa oqaal odayaal haween guddi dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa marka hore dee ilaahay baa mahad leh oo waxaynu ugu badanay maanta aynu ama dibad ha jirto ama guda ha joogay isu sheegaynaa waa waxaad og tahay aan kuu sheego qof waliba waa ogyahay bay ila tahay warkaynu maanta hala ku hayno laakiin ilaahay baynu u mahadnaqaynaa dee sidaa wanaagsan looga warramay iyo wakhtiga iyo muwaafaqada iyo inay bilaabanto waddadanu dee ina solansiye keenay mar labaadkana waxaa dee runtii mudan iyaguna dadkii sida milgaha leh uga shaqeeyey uga howlgalay waxaynu iyagana aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa saddexdaa urur injineerku inoo sheegay dee qalabkoodii iyo maskaxdoodii iyo abaabulkoodii iyo runtii dhiirigelintii intiiba isugu keen daray ee isla keen garab taagay hawsha inkastoo ay arrin dee hawl qaran tahay oo qof kastoo ka mida oo waxgashadaaba uu ka faa'iidayo ifyo akhraba haddana dee ummaddii kale ee waajibka ka saaraa bay uga soo horreeyeeno sidaa darteed ayaynu ugu mahadnaqaynaa anigu xoogaa yaroo warbixinahoo laga yaabo inaan dadka inta badani ogeyn uun baan taabanayaa 2-3 kelmadooda mid waxa weeyaan waddada horta saynu wada ogsoonahay waxay ku jirtaa 5 waddo dalka laga dhisayo haddii alla ka dhigo ugu horeeya kulmiye u qoran waa waddada injineerku sheegaya Raaribul waddada Boorame ilaa Saylac waddada Burco Hargeysa iyo waddada Laascaanood ilaa Xaysimo iyo waddadan Qorlugud shantaa waddaa u qoran xukuumaddu inay dhisto buuhoodle dee imika inta qoran baa la sheegayaa waa innaga waxay u qornayd horta sida qoraalka marka laga hadlo waxay u qornayd wadaamo goo Qorlugud Baladhiig waa qoraalka buugga marka laga hadlayo laakiin dee waa iska dhacaa erarka wixii la qoraba wax waa ka khaldami karaan waddadu laakiin dee meel bay lahayd oo halkeedii bay tegaysaa taas waxaan uga jeedaa waxa weeyaan waddooyinkaa waaweyn ayay dawladdu ballan qaaday inay dhisto waddadanuna waa ka mid marka 4 waddo ee kale la eego waa waddada ugu hawsha yar ee ugu kooban ee ugu kharashka yar hase ahaatee dee dawladdu baa sidaa injineerku sheegay runtii dee hawsheeda gudan karta laakiin waxaa looga baahan yahay deegaanka iyo shacabka ee la weydiinaya waxa weeye siday u kala bilowdaan iyo siday u kala karti badan yihiin bay u kala hirgelayaan waddada dee la wado ee gacanta lagu hayo waa dunidu inaga soo galo waxaa la yidhaha maxaad haystaan wax kugu dare marka waxaaga aad haysataa muuqdaan ee tacabkaagu muuqdo ee xoolahaagu muuqdaan waxbaa lagugu daraya annagu wasaaradda waa u tagnay waa ka howlgallay waxaa u gaara waddadan waxaa weeyaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda ayaa wasiirku u xil saaray annagana wuu nagu daray wuxuu yidhi ninkaa wasiirkaa waddadaa Qorlugud adaan kugu ogahay waanu imanayaa dhowaan haddii alla ka dhigo baahideeda iyo assessmentkeeda iyo wixeeda in la sameeyo way dawladda wixeedu dee iska bilow maaha oo xoogaaga yaraynu inagu keennay intaynu inta yar ku daadi maahe waxay u baahan tahay imisaa daamur gelaya imisaa jay gelaya imisaa kharashkeedu noqonaya wixii markaa wasiirkii iyo injineeraa loo xil saaray wasiir ku-xigeenka dhowaanna insha allah wuu imanayaa waa la eegi doonaa laakiin assessmentka marka la qaado goormay sidii injineerku sheegaya ma 2 sannadood kadib ma 3 kadib ma sanad kadib dhaqaale iyo awood iyo kartideena ku xirmaysa marka taas horta dee waa in bushaaraha ay wadooyinka dheer tahay runtii oo aynu rajaynayno waxa kale oo iyana bushaara ah waxa isku xidhmay guddidii waddada reer Buuhoodle ee qurbaha iyo
guddidii waddada ee reer Qordhug marka iyagana waxaan rajaynayaa inay guddida boodhkana ku biiraan boodhkii halka laga sheegayna way ku biirayaan raggii halka joogay reer Buuhoodle waa diyaar iyo guddidan inay kulmaan oo boodhkana ka qayb galaan qaadhankoodii inay ka qayb galaan oo sanduuq qura laga dhigo in sidan aynu u wadno kale iyadana la sameeyo inamadii iyo laangooyadii iyo dhexdii iyaguna ay qaybta kale ka galaan iyana waa war la isla wada qaatay oo sidaan ka warqabo Ingiriiska waa lagu kulmay kulankii waa dhacay anna waan dirayaa waxaan leeyahay mar haddii Ilaahayna waafajiyay oo waddadii bilaabantay oo wax wanaagsan maanta waa soo maray waana mari jiray shaqo iskuma laha yani waa wadda la mari karo xaqiiqdii oo si weyn wax looga qabtay oo iminka lagu soo dhiiran karo oo gaadiidka yani waddada waxa hadday noqoto caawimada dalka caawimooyinka laga qaato hadday noqoto caafimaadka iyo horumarka hadday noqoto xataa siyaasadda waxa weeyaan nimanka siyaasiyiinta ay xataa dhulka laamiga laba inta badan maraano ay tagaan way ku adag tahay inay leexleexdaan marka iyaduna waxay dabada ku haysaa horumarka oo haddii aanu ninka dalka qabsanaya ama siyaasigu imanin oo dhulka marin horumarkeeda iyo wixeedu cidimo oga marka waddadu iyadaa magaala waddadu iyadaa nolola marka waxaynu ugu baaqaynaa dhammaan dadkeena in qof waliba awoodiisa iyo intuu dhaafin karaba uu kaga qayb galo annaguna wixii xukuumaddu mar hadday ballan qaaday oo waddooyinkaa qoran ay ku jirto way ku qasban tahay inay samayso 5 sanadood gudahood laakiin 5 sanadood baa la isriixayaayo waxa weeye yaa 2 sanadood loogu sameeyay ayaa ugu dambeeyay laakiin xaqiiqda aanu leeyahay way ku qasban tahay waxa weeye xusbi dimuqraati markuu bulsho wuxuu ballan qaado mar dambena ka doonayo wixii wax la mid ah ballanqaadku inuu qabsoomo way tanna ballanqaad maaha waa qoraal taas way soconaysaa laakiin waxay u kala soconaysaa saynu sheegnay sida loogu kala dadaalo ee dadka deegaankaas ay dadaalkooda u muujiyaan ee gacantay ka geysanayaan u muujiyaan marka inaguna inaynu dadaallo way isugu baaqaynaa inaynu ballankii iyo hawshii daba galana waynu ku dadaalaynaa waxaanu leenahay waa idin garab taagannahay dhallinyaradana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu leenahay hambaliyo in lay awooddaa idinku qarsoonayd iyo ammaantaa runtii mutaystaan waa wax weyn oo cid walba diila gelinaya waa wax kuwii ku tabcayeena ay ku soo dhiiranayaan marka idinna waa mahadsan tihiin wixiinii baa ka shaqaysay inuu dib u maray habeen horena xagga u maray marka waa intaa wax qabadka waxaan ku soo dhaweynayaa imkana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay waa mahadle marka hore oo xaq u leh in loo mahadnaqo mahadaan cidina la lahayn waxa kale oo mudan oo ammaan iyo boogaadin kaliya laaba aan u soo jeedinayaa dadweynaha arrinta tan maanta isugu yimi xasaasiga ah ee waayeelka leh cuqaasha leh madaxda leh haweenka karaamada leh iyo siiba injineer Faarax Xuseen oo isagu mid gaar ah leh mahadnaq gaar ah ayuu leeyahay injineerku mana aha tan oo keliya wixii uu ilaahay hortii iyo dadka uu ka soo jeedo uu u qabanayay ama u qabtay muddada dheer ee ma garanaysaa 40 sanadooda oo anagu intaas baanu isnaqiinay oo mid deegaan iyo mid caamaba uu soo qabtay
burca bilowday ma garanaysaa mashaariicda tan khayriga iskaa wuxuu qabso mid walba ka koobu ahaa anigu qudhaydu markii la bilaabay ninkii burco madaxda ka ahaa baan ahaa bridge-ka uu sameeyay ninkii dhagax dhigay baan ee bariga nin aynu ka baxayno ma garanaysaa adkaysankiisa iyo dulqaadkiisa iyo aqoontiisa ma aha halkaasaan ku dhaafay ilaahay ifkana caafimaad iyo karaamo iyo sharaf ku siiyo aakhirana ilaahay dembi dhaaf iyo maghfiro ha siiyo isaga iyo dadka islaamkaaba halka kan maanta waxaynu isugu nimi arrinta tan waddada ah muhiimadda ugu weynina waxa weeyaan in aynu warka xaaladdu halka ay marayso aynu gaadhsiino dadkeenni meel kastaba ha joogo wixii kale dheeraade wax ku darsanaya ee ilaahay ugu dhowaanaya iyagay jirta laakiin dadkaynu warka u diraynaa waa qof kasta oo caalamka jooga oo degaankan ka tirsan oo rag ah oo dumar ah oo waayeel ah oo dhallinyaro ah ayaanu ma garanaysaa halka kan uga gudbinaynaa in ay hawshaas ka qayb qaataan oo qayb libaax ka qaataan waxaana kaloo sidii raggii hore yidhi aanu mahadnaqaynaa raggii bilaabay arrinta tan anigu su'aal baan weydiiyo weli waa laygu haystaayoo hadda lay sheegayo lalahaa waanu xusuusannahay wixii aadna tidhi waxaan ku idhi maalintii shirkii hargeysa aynu isugu nimi war meesha malaami baynu ka dhigaynaa mise carratuur baynu ka dhigaynaa su-aashaasaan weydiiyey waxaan dareenkayga ku jirtay kaan iminka ku hadlaya iyo kii markaa magaraysa kala jaad bay ahay kaan iminka raacsanahayna waan sheegi doonaa kaan iminka raacsanahayna waan sheegi waa laami bay yidhaahdeen waan iska fadhiistay markaa waan fadhi kii waa laygu haystaayoo waxaa la leeyahay maalintii arrintii aad tidhi meel bay na damaqday yaa haddaan idhaahdo maalintii maantana shaqo wanaagsan baa la qabtay shaqo wanaagsan waxaa la qabanayaana dee stages bay kala leeyihiinoo ma garanaysa waxaa la yidhi dherarso intu furaashkaagu leegyahay dherarso anigu taan u jeeday taasuun bay ahayd wax kale ma garanaysaa umaan jeedin waxa weeye maanta shaqada la qabtay ee injineerku uu ma garanaysaa inoo fasilay waxaa ka mid ah shaqooyinka duufaan ha dhacee inaanay waddadaasi marnaba aanay inaga xidhmin ee la mari karo gaariga yar iyo ka weyn sidaa gaariga yar buuhoodle ka yimi ma garanaysaa garandada ah ee buuhoodle ka yimi ee xalayna maray saakana maray ee la sheegay sidaas oo kale waddadu waayo dad badan oo safar doonaya oo ma garanaysaa haddana aan ku soo dhacayn baa jiro oo ka baqaya dee waddada maristeed anigu berigii la qaxay intaasaan kaga baxaya aniga wadaadkaan waalaan nahay ayaa dee burco ka soo baxnay wuxuu yidhahaan qorlugu degno anigu waddada qorlugu anigu wadaamo goobaan yaa waan anigu wadaamo goobaan degaya haddaad qorlugu degayso maxaa taa igu kalifay waddada igu kaliftay ayaa igu kaliftay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ilaahayna ka rajaynayaa inuu ma garanaysaa inoo aqbalo waxa weeyaan waxaana dee waynugu filayn waxna waa kabadbalsi wey inaynu lixdankaas inan horta marka ugu horraysa ka adkaano ee waddadaa ma garanaysaa kuuligii inoo noqonaya ma garanaysaa cali abukor oo waddadaa inoo ilaalinaya qayladhaanteennuna ay taa noqotay waxaan kaga qabaxaya annagu reer hargeysa haddaanu ayaanta weydinkii nala shiray
weli waxba iskuma naandii ya laakiin imka haahe weli wax iskuma naandii waa kan loo faanaysa qoladii nabraab waa haahe imika isugu faan bay dee noqonaysaa markaa sidaynu u kala lacag badan nahay ayuun baynu ma garanaysaa faankuna sidaasun haddii alla ka dhigo uu noqonaya saddexoodayna meesha waanu ku joognaayo ma garanaysaa abaabulkaa samayn kara annaga daymka wixii ka dambeeya uun baanu ma garanaysaa jawaabteeda ay baxaysaa laakiin dadka dibadda ee dhulka kala fogfog ku nool ee ku kala dhuundhuumanaya weeye kuwaanu warka u diraynaa waa kuwaas wey ya oo aan si aan reer England oo kale arrintu keligood aanay ma garanaysaa inay u dhaganuglaadaan reer Ingiriiska reer England in loo dhaganuglaado oo iyaga xogogaal oo iyaga bilaabo iyaga ma garanaysaa meesha bilaabe in loo dhaganuglaada baanu fariinta ku diraynaa ma garanaysaa qaaradaha kale iyo dadka wadamada kale jooga ay u dhaganuglaadaan oo maqlaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi maxamed ilaahay dambigeena ha dhaafo ilaahay khaatimada khayr hayna ugu khatimo ilaahay jannadiisa hayna geeyo ilaahay arrinkaa aynu wadnana abshirtiisa iyo dariiqiisa hayna waafajiyo haynoo fududeeyo ilaahayna aan ka baqno oo awoodaha waxaa ka mida wax lagu qabto in ilaahay laga baqo oo lagu xidhnaado oo lagu toosnaado wax waliba way isfurayaan awooduna waa ta ilaahay hadba intaad ilaahay u jirto ayaa wax qabadkaaguna u jira marka dad muslimiin baynu nahay oo ilaahay aaminsan oo hel tawxiida waxa aynu qabanayno na ilaahay waa inoo fududeynayaa aan yaqiin wanaagsan oo ilaahay aynu wax kaga doonayno la nimaadno oo ilaahayna wax barino oo baryadiisa badino inuu muraadkeenna inuu hagaajiyo waxaan ku darayaa warbixinta wadada injineerka dhameeyey aqoontu dani waliba wuxuu aqoon u leeyahay buu ka warbixiyaa aqoontii wadada waa taa faarax wey wuxuu caddeeyey waqtigii waqtada la bilaabay iyo maanta in farqi weyn u dhexeeyo wuxuu kaloo inoo sheegay wadada in si joogta ah loo marayo biliye badh kadib taladu bixiyana waxay ahayd dadka shaqaalaha imaka gacanta ku haya meesha ee loo diray sidii loo joogtay in laaha laga shaqeeyo arrin buu ka horeeya markaynu intaa ka adkaanno waxa inoo muuqanaya sawirkii markaa loo gudbayey iyo carratuurkii iyo hawshii sidaynu geli lahayn yaa inoo muuqanaysa laakiin horta waxaan hore baa muhiima in la adkeeyo oo lagu guulaysto taa intaasaan kaga baxayaa waxaan raacsanahay taa injineerka raacsanahay isagana waxaan leeyahay ilaahay dembigiisa ha dhaafo ninkaas waa nin muxsina waa nin danta caamkaa u ambabaxay weeye wuuna ku guulaysto gacantiisana guul bay leedahayoo weli mashruucu galay oo fashilmay ma arag ilaahay waxaanu kaaga baryayaa ilaahay dembigaagana dhaafo jannatal farduusana kuugu naxariisto iyo shirkeennan iyo dhammaanteenba ilaahay inuu arrintaa inaga aqbalo wax kaloo aanu faaraxow kuugu abaalgudno oo ummaddu ay kuugu abaalguddo ma garanayno waanad helaysaa waxa aad ka shaqayso waanad heshay waanad helaysaa raggii arrintan soo aasaasayna sidaasoo kale ilaahay waxaan u baryaa in ilaahay dembigooda dhaafo marka laga soo bilaabo muusena iloo bahasha idi bilay yaa ilaa raggaa maanta wada ee ina kiciyey iyagana dembi dhaaf baan ilaahay u weydiinaynaa rag iyo dumarba waxa aan taana intaasaan ku dhaafayaa waana u mahadnaqaynaa dawladdana sidaa la sheegay bahasha way ballan qaaday wakhtigiina lama gaadhin ay hawsha gelaysay waa u diyaar laakiin innaguna dee waxa aynu dawladda waa ku simaynaa arrinta waynu ku simaynaa lacagtana sidaa la sheegayo ee cabdiba sheegay
dee ragna shaqada weligii markuu bilaabo wuu kala dambeeyaa laakiin orodka ka dambe ee riiqdale yumba guusha qaata weli nimankaa ingiriiska ka yimi iyagu kaashka keenay mooyaane wax badan isma dhaannee dee aan isijaabinno ooyaynaan isu faanin sida uu sheegaya cabdiye bal aan dee waddada hawshii waa bilowe dee aan isa sugno waana inoo dagaal waa inoo tartan waa iska caynkaas annagu haddii ilaahay ka dhigo waannu isku noqonaynaa waxbaannu ka soo jugiya macsinaynaa durbaba odhan mayna hawshii waa gelaynaa horeyna xaqiiqdii waannu u galladoo rugbileeshin badan iyo baarlamaannu leenna way bilaabanta taana intaasaan ku dhaafayaa waxaan kale oo baaqaa dee taasaa baaqa imakaynu wadno ummad yahay wixii aa qabateenna way muuqdeen wixii hadhsanayna waa taa la sheegayoo waa annagaa laga warramayo waa kaa jeneeri ka warramay fadhiga ha laga kaco oo dadkaa waddada qoloba qolay ka xaq leedahay qoloba qolo ayay ka xaq leedahay waddada marka laga hadlayo dadka waxna dee sometime bay maraan waxna barman bay dee u yihiin reer buuhoodle marka laga soo bilaabo ilaa wadaama goog ayaa ugu xaq weyn waddadaa inay xoologeliyaan deegaankii ah xoolaha cidda inoogu xoolaha badayna weligoodba xooluha ka baxeena waa iyaga wey dhacdeennii iyo xoolaheennii iyo qisnadeenni halkaas yaalin waxaanay barteen maxaa sidaan iyo maxaa la timaadeen iyo maxaa wadaan weliba labada magaalo way isdhaamaaneen magaaladaas waa fadhiid weeyaan qurluudlayada waa magaalada doonaysa iskuulkoodii in laga bixiyo iyaga kharashka oo sanad walba aanu ma garanaysaa in laga qaadana lagu xadoo tujaarta waaweyn ee magaalada ayay inamadoodaanu lacagtoodii bixinaa war waxaanu leenahay war meesha inoogu dhaqaalaha badan qurlugud war lacagta soo saara lacagta waa ka dhimanaysaan meesha wadaama gool la yidhaahda waxa la xooluhu waxay kugu litaan markay bahalkooda kaa cishadaan war iskuulladoodii bay dabarteen iyo dadkoodii oo iyaga qaylo noogama timaado waana ku tartamaynaa waddadaasoo waynu is ogaan doonnaa haddii ilaahay ka dhuwo qurlugudna intaasaanu goonnuu leh waxaan kaloo anigu warkii kaga baxayaan ku soo gebagabaynayaa baaquna waa kaasoo waa inoo tartan iyo dagaal aynu arrintaa imanka u guntanno wax walibana waa la qorayaa adoo ninkii meeshaa 100 shilin ka gashaana waa qoranta waa la qorayaa ilaahay xagga ilaahayna way ka qoranta waxaan kaloo ku darayaa nimankaa reer buuhoodle ee walaaladeen ee waddadu inaga dhaxaysay daaqu inaga dhaxeeyay dhaliyadu inaga dhaxaysay deegaanka inaga dhaxeeyo sidaa waddada aynu wada leenahay baynu wax walba wada leenahay ya shirna waa inoo socdo nimankaa waan u fariin baan u gudbinayaa shirkii aanu ku baaqnay ee ballantu ahaa ee baaqday laba dawladood dhexdood buu ku beegmay dawladda dambe way ballan qaaday shirkii inay qabato oo nagala shaqayso wax isku hagaajin baa jirta shir baaqday ma jiro waxaanu idin leenahay walaalayaal shirkeennina waa bishan soo socota ee maaraj waxaanu ku rajo weynaa shirkaas inuu dhaco shirkana waynu wadaynaa shirkana waxa ka mid ah oo gundhigu ah waddadaas ka mid weeyaan waxyaabaha aynu ma garanaysaa waa albaabkii shirka oo wixii laga wada hadlayay automatic xagga ilaahay bay ka bilaabantay waddadana aan isugu tagno waxa aynu kala guranaynana waa inoo calaamadsiinoo way isu sugaynaa shirkaasuna waxaanu filaynaa bishaa soo socota xilli kasta ka dhacay inuu dhaco taana waxaanu idin sheegaynaa reer buuhoodle haddaad tihiin arrintaa waa lagu guday shirkana dee annagaa ballan qaadnay oo dabada kaga jira madaxweynahana wuu nagu taageeray cusubi ahmiyad weyna wuu hayaa in halkaa nabadi ka dhacdo shirkaa la xoojiyo la soo dedejiyo buu ballan qaaday taana intaasaan ka sheegayaa oo fariintaa waxaan kaga faa'iidaysanayaa dee munaasibadanoo arrin dee taagan oo tikraaran bay ahayd ya taana intaasaan ka soo gebagabaynayaa
waxaan warkaygii kaga baxayaa ilaahay ha inagu asturo arrinkaa ilaahay ha inagu asturo ilaahay ha inagu asturo rayn waxaan salaamayaa akhyaarta sharafta badan leh ka soo qayb gashay hawshan maanta u joogta hay'adda cidlada ah ee Ballimadheed mar labaadka waxaan baaq u jeedinayaa cid kastoo ay wadadan khusayso hadday dawladda tahay hadday shicibka tahay iyo hadday deegaanka tahay cid kastoo ay khusayso waxaanu leenahay wadada tabarruca ee khayriga ee waqafka jaariga ah laga soo qayb galo cid kastaba inta ka bacdi gabay weyn anigu ma soo diyaarin sidii cali warqadna ma soo qorin yaro halkan uu garanaysaa imika ay muuqatay yaan garanaysaa sidaynu wada ognahay waxa guul lagu gaadhaa wax wada qabsiga iyo iskaashiga iyo isku duubnaanta aboorku intuu leeyahay waynu aragnay dudubooyinku sameeyo waa isku tiirsanaan iyo wax wada qabsi quraanjada waynu aragnay ilaaleegtay sidii wada shaqaynayso iyo amaawirtay ku soconayso nabi yaqub alayhi salatu wasalaam markuu ubadkiisa la dardaarmay wuxuu yiri ula soo gura ulo uli baa la isku wada xidhay ninba mar buu dhiibay wuxuu yiri jabi wala jabin kari waay wuu kala furfuro midba mid buu dhibo mid walba tiisi wuu jabi wuxuu tusayay isku duubnaanta iyo wax wada qabsigu inay aki tahay marka afaray inta ka turjumaysa ayaan insha Allah muruq iyo laxaad wada jira ayaad meel ku gaadhaa haddaan midigta bidixta kulayn malaha miisaan quruntii midowda ayuun baa gaadha meel sare midaqshaan la khayr male oo qofku meel u socon waa dundumada madlugaysan aad meel fog ka arkayso waa midhar aboora oo wax qabad meel isugu geeyay macan jecesha weydinka arko way mintidaysa masaalkii uli nabi yaqoob baa meel inoo yaal midka kaliya ruuxba judhu malaw ka siiya markaas la isku wada xidho iyagaba maare loowa muddo aan yarayn baa wadadan muran ka taagna hadduun bay macquul noqotay oo maamul loo helay waa ka macdaadkii yimi ee miisay jaygi marwo iyo haween iyo mudanaha jooga maalkeena waa inaan wada dhignaa moodka iyo noolka midhacyada aroorada ku taal baynu moodnaa hawl weyn dhirta minanka taaliya baynu qaadaynaa ciidda moodka misir dhinacyadeeda waa inaynu dhagax ku moosnaa waa inay muraayada tagtaa maalmadabadeed waa inay marsada qorlugud si mashaaxda meesha iyo shaxdi waa inay madaxa saarta mariilka dib bay kala kulmaan maalka dhoofaaye marin iyo waxaan doonaynaa marin iyo jid baan doonaynaa uunku soo maree mitirkaaga ruuxii kastow muujiqadis السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب dhammaantiin mar labaad baan idinku celinayaa culimo iyo madax iyo maxaan idhaahaayeen cuqaal iyo marwooyin iyo mudanayaalba mar labaad baan salaanta islaamka idinku celinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan taatacaygu aan hadal baanan garanay waxa weeyaan bismillaahi raxmaani raxiim قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل والله dadku waxay u yaqaaneen quraan yar laakiin qofka akhriya 3 jeer wuxuu la mid yahay mid dhameeyay quraanka marka waa isku mid 30 jis iyo quraanka dhambaadkiisa rabnay inaanu ishelo oo dhammaan intaanu shirno wax wada qabsano marka ka bacdina aanu barino walaaladayada kale islaamka ama reer Somaliland ama nala dhashayba ee dhinacyadayada taagan ranaynu baanuna garaacayna wallahi wada garaaci maayo taalgaasan kaga tagay salaamadu muslimkaan la hadlayaa walaaladayda muslimka ee maalmihii baryaayay baan baryayaa waxaan baryayaa ummadda islaamku intay leegtahay dal iyo dibadba waxaan samaysanaynaa maryo isu eego gaara oo ay leedahay wadad waxaanuna maraynaa suuqa weyn waxaana kala tashanaynaa gudidayada taan halkaasan kaga tagayaa ama ragow soo baxay nala soo baxa oo nala shaqeeya ilaahay dartiina u bixiya waxa haysataan qof bixin kari waaye $10 ama $1 ma jiro waydinaan bixinayn wadadana waydinaan garanayn ilaahay wajigiisa u noqdo wuxuu dhigta waa fariin ummadda islaamka ee kale suuqa nala taala ama magaalada nala degan ama nala dhalatay ayaan iyaga dib ugu laabanayaa markii hore meel ka dhacnay dib baan idinku soo noqonay wax noo dhiiba wadadii dhaqaaqday baan leeyahay soo gaadha kaalay dhayda ila dhama lacagta ii dhiiba dhammaan intaad leegtihiin dheehda dhinacayga
qof waloo dhagalow dhagaha saru qaad adeerkay la soo qaado wixii dhicsan noqdaan waa dhibaato marka waxaanu jecelahay haddii ilaahay ka dhigo in hawshay la wado wixii haddii ilaahay ka dhigo aanu baaq u dirayno dibad iyo dalba in hawsha la wado in la dhameeyo wadada haddii ilaahay ka dhigo waqtiga ilaahay ka dhigaanay dhamaanaysaa marka aad bay shaqadu u wanaagsantahay si wanaagsan bay u socotaa annaguna weydin garab taaganahay haween meel uu joogaba waanu dabadaan kaga jiraa soo kacay shilinka keen wax walba waa nalagu yiri sida qamar sheegayso naama salamada waa qura ka guraysaan naama yaga salamada lafteedu naama yaga kuwan guranaya naama waxaanu idin siinaynaa xitaa anagu waanu diidnay telefoonada iyada waxaanu ha ku soo dirin anagu guran maynee waxaanu akoon aanu samaysanay baanu qora akoonka lacagta ku shuba waxna noogu shubay waxna waa daba joognaa waqtiguna waa adagyahay laftigiisana in loo dulqaato oo dadka abaaro iyo cudur iyo hawl iyo imtixaan baa soo maray marka in la isu dulqaato oo un hala soo qaado un maaha wixii meesha ku jirana waa in dadka lala eega oo dhaqaalaha lala eega wixii aan hagrashana waa inaanay meesha soo gelin oo waxba la hagranin haddii ilaahay ka dhigo marka hawshu way socotaa si wanaagsan bay u socotaa alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay waxaynu ka baryaynaa wadadaas soo dhamaatay in ilaahay subxaanahu wa tacaala ina gaadhsiiyo oo la maro salaamaya waftida halkan isugu timi marwooyinka mudanayaal dhammaan cuqaasha madaxda culimada dhammaan wad salaamantihiin ama bacdi halkan waxaanu nimi wadada dhagaxdhigeediina waanu joognay wajigii koobaad wajigii labaad ayaa maanta aanu nimi halkan inuu wada maraynaa markaas wallahi si fiican bay u socotaa wadadu si wanaagsan bay u socotaa waanay waxaan ku boorinaa ku dhiirigelinaynaa in halka ka sii wadaan hadalku waa la dhameeyay daliya dibadba waxaan ugu baaqayaa inay wadada la dhiso dhammaan Soomaaliland oo dhan bay u taalaa iyo maxay hayday meel kasta ay joogaan daliya dibadba marka halkan tix yar baan ka tirinayaa la yiraahdo diidi maasayar بسم الله wadadii dhaqaaqdo dhalinyariyo waayeel dhexda waanu xidhanee dhiidhiya walaalayaal ninka dhoof ku maqaniyo dhulka kiina joogaba dhiidhiya walaalayaal ninka dheeha maaliyo kii dhaqaala haystaba dhiidhiya walaalayaal aynu wada dhamayno dhexda aanu xidhanee dhammaan Soomaaliland oo dhan dhiidhiya walaalayaal yimaado ilaa Hargeysa ilaa Faranta Qorlugud ilaa meel walba isaga yimi waxaana ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh horta qof walba waxaad niyeysataa inaad ajarkaaga shaqaysanayso qof walba niyadaada u sheeg inaad waxaanaad shaqaysanayso wadada iyo masaajidka marka culimadu fiqiga ay sheegayso waa isku mid masaajid qof taagan oo kala tahay marka horta taa niyada u sheega waxba yaan la kurbanin waxba yaan la kulaanin taa horta qof walba niyada u siidaa qofka maanta ka uga yimi wuxuu qaadanaya iska roga miisaana inta markaan ka gudbo halkan waxaan aad iyo maartay uga mahadnaqaynaa saddex qolo oo ugu horeeyay jin dheer faarax ilaahay subxaanahu wa tacaala waa loo duceeyay ducada oo qaado aad iyo aadna weynu ilaahay subxaanahu wa tacaala rajo wanaagsan baynu ka filaynaa akhriye iftiinba qolada labaad waxa weeye deeni baa yidhi xidigadaad ma joogtay anaga oo nagu daatay halkan gabayga cali dhibil waa maqlaysano walaqad baa ka baxaysay nin baan wadaamo walaqad uga bixinado ninkaas waa hasha markuna dul dhigay annaga rasmiga wadaamo ku dhigay bay ahay dabadeedna waa la yaabay wax dhigaas la mooy wax kale waa la waay sideed cashum sida gebigiisu habeen iyo maalin aanu seexanay waa ninkan ceel dheeraan iyo Ismaaciilkaas wallahi waan ka garab galay intuu xagga u dhacay wariyaan leeymoodo in khamri cabay ilma reer galab gala oo sidii baan suuqa ku geeyay horta ninka magaca wadaamo gool loogu bixiyo wala qadadana sheekadooda waa la hayaado warda wala qadkii kanu jabiyaan la jabna waan horta wadada ku galay ragayagii wadaamo go joogay waa arinta dul dhigay annagu wala qadkaas aanu bixino waxaan yiri ma maqashin wala qadaa jabiye bar Cabdillah wareeg kana waa wala qadkii uu ka nool yahay aynu la jabno horta aniga iyo gudoomiyaha gaariya rag leh tan nagu dhacday waxba sheegan mayna ilaahay agtiisa inoo taalaaye
waanu wareeray waa lagaga midho dhalay waxaan idiin sheegaya horta ha ka saarin ee u geeyo fariinta nooga geeya ninka Yaasin Cabdi Carbooshe iyo Cali Dhimbiil Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyagana ha u gargaaro Ibrahim nimankaas waxay keeneen qalbi adayg wax la yaado wadadaas dhaqaaqeeda ayay koobka qaadeen ragayga wadaama goona waanu la qabanay cid waliba saasay dhagaha tiri dad waalan oo Hargeysana laga soo eriyay Burcaan laga soo eriyay baan u aragnay warinayna ma erinaa baan nidhi dabeedna waxaan warmay aan la jabnayno Ilaahay subhanahu wa ta'ala nimanka ha u gargaaro horta aad iyo aad fariin waxaanu gaarsiinaynaa oo waara ka saarinayna madiina asbax ka baandhaysaani waxaanu Yaasiin oo ku sheegaynaa inaad taladii aad kaga tagtay deegaamada wadaamago iyo qorilugud ay midho dhashay aanad aragtay maartay guusha Solomadow iyo meel walba iyo abseedada aad ka daawatay waana la wadaa aad iyo aadna waa dadkii niyadii waa u keenay wadadiina way soo uraysaa way samaysatay in yar baa wadadii gabigeediba ka hadhay waxa weeye waxaanu ku sheegaynaa sidii niyadii aad noogu timi iyo mid kasii dardaran baanu ka filaynaa inaad ku wado wadada waa fariin waa dhambaal adiga iyo wax laale iyo wixii jooga Ibrahim iyo maartay ma kala reebayno dhamaantoodba dadka dibadda waxaan u sheegaynaa niyadii wacnayda soo jeediseen midhaheedii waa arki doontaan si degdeg ah ayaanu doonaynaa inaanu jawaab idin ka helo biyagu intaan la helin baanu doonaynaa wadada in inta dhagaxa daamurka la dhigo dadku si u dhogormiiqayaa wadada labada ciidood mooyaan inta dhagaxayn daamurka la mariyo intaan biyaba gaadhin biyaguba la gaadhin baanu doonaynaa taas waa fariin ballaaran oo aanu u dirayno dhammaan dadka wadadan maaragtay hamiyada u keenay oo quseeyay ilaahayna subhanahu wa ta'ala inuu inagu guuleeyo ayaanayna inta markaan ka baxo annagu waxaan odayaashii wadaamago dhaqaalaha nala saaray horta annaga lacagtii mooya hawl naguma baaqan wadnaha nacadaado waa markii sagaalaadan halkaan nimaadno ragga burca waa naga warhaya dhaqaalahana xitaa wallahi bacdan qaatay anigu soo reer waajidka wadaamago la dhexmaray culimada iyo codkarka iyo jindheerka iyo waxgaradka iyo haweenka inta waanu ka salaamayna salaamta islaamka aanu ku salaamayna assalaamu calaykum salaanta markaan dhaafo wadadu waxay leedahay dhibaato badan dadka waxna way soo arkeen waxna ma arkin ceelka la yada burciyo wadaamago anigu habeen baan u kala dhaxa hadda laamiga lagu arkay anigu 67kii habeen baan u kala dhaxa habeenkii labaadna waxaan ku hoyday burco waxaana ka tagay ceelka wadaamago maantana waa taariikhda saacad baa ku soconaysaan been idii sheeg maayo 9kii habeenimo ka raacay gaari wadaamago wuxuu ila hoyday halka kirir dusheeda waanu ka tagnay qadadii waxaan ka cunay inaaf madoobe wuxuu nala tagay saacadan ku qiyaasay markii 6dii markii saacadaba dadku malayaan 6dii ku qiyaasay ila tagay burco waa aragtay nimanka intay noo socono dhibaatadaas ay ga soo martay aniga tani marka aynu arkaynana de qofkii soo maray waa garanaya maalin dhaweyd baan maray wallahi kaliya baan habay ka seexan waayay oo dhibaatada waynu aragnay taa markaan dhibaatada wadada halka ka dhaafo marka ugu horeysa ilaahay ha u dambi dhaafo ninka jindheerka ilaahay baan u baryaa ilaahay inuu dambi dhaafo maalkiisa iyo naftiisa lacag la qaatay qiimo ma leh waa ka uraya inaguna waxaynu doonaynaa inaynu horumar qurba jooga iyo mid dalka jooga iyo mid dibadda joogaba anigu waxaan jeclaaba dadka dhifayd in loogu dhifto wixii wax garaday wax haystay aan waxba haysan qaar waxba risqa ilaahay baa bixiya ilaahay baa keena risqa oo ilaahay baa bixiya marka waxaan jeclaan lahaa iyadoo dhifayd ba laynoogu dhifto oo calaamadirkii uu sheegay faarax laynoogu dhiftaa waan jeclaan balaha anigu oo raalliba ka ah annagu haddaanu wadaamago ma qaadhaan xumin mana dabeecad xumin وانا اسمق الله اسمنا قب dadka isxumeeya ma nihin anagu waxa la wixina lagu xukumo waxaan nahay mustacid aanu bixiya diyaar baan una hadii xoolana lagu xukumo hadii maalna lagu xukumo maalintii ariga la iibinayay ayuu shacbiday iyo $2 ka $1 waa maxay war naga tag waxay faqriga nala soo gashay war bixi lacag badan keena nagu dheh marka waxaan anagu diyaar u nahay inaanu bixino waxa la wixina lagu xukumo hadeer marka horeysa ayaan wadada bilownay waana lagu qoslay ragga gaadiidka wata ee qorlugud baan nagu qoslay waxay habru maxay miyay waasheen miyay waalayiin imka xayo ku socdaa ma waday sameyn karaa waxaan ku yiri waxaan ku baryaynaa dadka yaga waxaan u dhigay 120 anagoo haweenka ah oo haweenweynaha qorluguda laakiinse intirsan dhigtay ayaan waxaan dhignay 120 lowda dhagaxa ilaa 50 waan ka saaray wuu yaala dhagaxi
injineerku wuu ugu tegey waanu tusnay inta aan wax ka qabanayno waxaa noo timi hay'adda keer way nala gacan qabatay waxay noo qortay dadkii ka shaqaynayay markaa wadada oo 130 qof ah 130 qof way ka shaqeeyeen wixii markii aan naloo eegin injineer noo imanin aanu ka qaban karaynay dhagax saarka ah ayaanu ka qabanay dhagaxiina waanu dhignay waxa noo ilaahay keenay abaartii labadii kuri aanu haynay ka dambeeyaan doonayaan wax ku qabanno waxaan ugu gurmanay dadka abaarta ama biyaha ha noqoto ama baadka ha noqoto haween ahaan marka aan ka hadlayaan ragga ka hadlaynin markii aan u gurmanay wixii way isla gaabseen oo isla go'een dadkina abaar baa ku dhaxday dadku waxa jirtay mar wax qabsan karayay iyo mar aan waxba qabsan karay maantana waa la qabsan karaa shalayna waa la qabsan karaa waa laga sii fiicnaa maantana waa la qabsan karaa xoog oo la keeno iyo xifrad oo la keeno inta waa lagu qaban karaa maalintiina waa la qabsan karaa ilaahay baan u dirin maanta anagu haddaanu reer qorgudnahay horta bal marka iyaga hore maamul malihin waxaanu nahay dad awdan oo dhagaha iyo indhaaba ka xidhan oo aan maamul balahay waa maamulku waa ka dawladda iyo ka dadweynaha mid walba waxaanu uga dhaga xidhannahay waxbaanu eeganaa waxaanu eeganaynaa dee waxa weeye raggu inuuna abaabulo oon horkacaanu doonayna dumar baanu annagu nahay intii dumarnimo qaban jirtay guriga hoostiisaana lagu talagalay in kaloo ka badan baanu qabanay waxba annagu yaanan haddaba isfaaninin ragga iyagina waa noo joogaa waanu garab taaganahay imika haddeer waxaa jirta hay'adda keer inay haddana tiri 120 qof baanu idiin qoraynaa 120 kaa qof 5 guddiya baana loogu qoray 5tayadii guddidaha qaarkeed way joogaan 120 qof waxaanu gashanaynaa wadada wadada xoog laanu gashanaynaa wadadaanu gelinaynaa waxaanu ku talagalnay 4 bilood ee 5 naloo qoray 120 kaa qof inaanu wadada soo gelino ilaa kaarta habreed iyo ilaa qorlug waanu diyaar baanu nahay qalabkiina waa noo soo raray waana noo keenaya keer in badan bay wax nala qabatay aad iyo aad bay wax nala qabatay hay'adda la yiraahdo foundation ma kare iyo hay'adaas aad bay wax nala qabatay taasuna 130 qof ayay quudisay 9 bilood imankana u wadaa taasuna waxay noo keentay markii hore 130 imankana waxay noo soo wadaa 120 aad iyo aad bay hay'adahaas wax noola qabteen labada hay'adood aad iyo aad wax noola qabteen waxaan idin sheegayaa ha soo kurkursan caliyow waxaan idin sheegayaa haddii wax la qabsan karayo waa la qabanaya rag iyo dumarba waa la qabanaya waana la qaban karaa imankana annagu waxaanu dhigaynaa wixii ilaahay noo diray annaga iyo ragga iyaguba waanu qabanaynaa wixii ilaahay noo diro waxa timi lacagta war annagu lacagta cid la baryamin reer qorgud haddaanu nahay $25,000 ee lagu horay waanu bixinaynaa si kastaba aanu bixino nin xoolo keena iyo nin lacag keena inta waanu bixinaynaa bariyina mayno waa naga badiyaa waanaanu ku dhaqsanaynaa haddii ilaahay yiraahdo wadada ha la helo madowgii ha la saaro sanadka iyo 2 iyo 3 waxaanu kala u ducaynaynaa ninka injineerka ninka faarax injineerka iyo shirkadihiisa bawaanu ducaynay shirkadiisa hadaan ninku la qaabin oo wax lala qaban wax ma qaban karo waxaanu idin leenahay waxa lala qabto waa raggiinu haystaag taagin noo dhaqsada anana abaabulo waxaan ku darayaa in yar waan soo gaabinay oo karagu gurguuranaya gaabiya leh ragga anagu waanaanu dhalaa waanaanu dhisnaa waanaanu u tunaa laakiin hadalka iyaga way yaraa dib u yareeba libtana anagu ba waka anagu waxaan nahay hablaha qorlugud hablaha guntiga ilaahay subxaanahu wa ta'ala u diray dawladana u diray shacabkana u diray ciidana u diray ayaanu nahay hadday gurmad xaggaas tahay in ka soo hadalka aan yardadayo iyo hadday gurmad Soomaaliya gunteeda tahay mid walba habla taagan baanu nahay ilaahayna guul baanu ka sugaynaa insha Allah bidmillaah iyo magac waxaan u taaganahay anagu lacagtaana la saaray waxaan u taaganahay tirin mayno bisha heblaanu bixinayna laakiin waxaan u taaganahay inaanu dhigno hadday ari tahay iyo hadday tahay lacag iyo hadday tahay dollar iyo hadday tahay line iyo hadday tahay gurmadka iyagu iraana maanta saan u taaganay inaan fadhiisanayn ayaanu ballan qaadanay ilaahayna waa noo rumaynaya haddaanu qorlugud idibka dunida iyo dhaqaalaha dalkaanu nahay haddayna isku tirsanay waa tabaalo weyn annagu hooyooyin dalka u heegan baanu nahay idibka dunida iyo dhaqaalaha dalkaanu nahay xilka la saaraba hablaha xaabiyaanu nahay xilka la saaraba hablaha xaabiyaanu nahay idibka dunida iyo dhaqaalaha dalkaanu nahay haddayna isku tirsanay waa tabaalo weyn ilaahay baa mahadle waxaan mudnaana leh waftida ka timi ilaa Hargeysa burco labada degmee Wadaamago iyo Qorlugud Caynaba
yaa mudnaan leh waxaan u soo laabanayaa waxaanu nahay xildhibaan golaha deegaanka Buuhoodla haddaanu nahay Qorlugud marka hore waxaa naga diyaara ilaa 80 ilaa 100 nin oo xoog leh oo wadada galaya bisha saddexaad boqolka ilaa 80 nin oo galaya ilaa kaartada ilaa Qorlugud waa naga diyaar hawshoodina waa haynaa waa diyaar qodobka labaad lacagtii la saaray ee la saaray $25,000 bisha saddexaad sanduuqa wadada waa ku soo xareynaa insha Allah hadii laga horaanteed insha Allah xildhibaanadu waa Qorlugud iyo wadaamaga wadada ka dhaxeeya waxaanu nahay 9 adu maanta waxaan bartan kaga baaqayaa $500 oo wadada أنا حلدمانة هران قاضية أو ضدع ما شاء الله أنا كترسن قريب تقرلوج ها دقمة تقرلوج وحبرتن فرهين وديريا يباق شالية الدبدة ملك استوى شوكتو وضدي ويصعطي ويصعنسا بابورتي رد تجاسيد بمرسا حلكي إذا صارنا متصدح له والله به تشاهد كسيف فولو وهاي وح مركي حركية لطو حركته way ku qaadaa waxaan kaga baxayaa intii loo duceeyayna ducada la qaba dadka ama jidheerka ha noqoto ama jaladii dibadda Ingiriiska ha noqoto intaana ducada la qabaa wassalaamu calaykum raxmatullaah dadka halkan isugu yimi uqaal iyo codkor rag iyo dumar aad baan u salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadalkii dadkii hore wada yiri in lagaga daba tuntana ma aha intii ay yiraahdeen baan la qabaa hadday duca tahay iyo hadday hambalyo tahay waxa uu meesha muhiima baaqan aynu dirayno inaynu niraahno ka kacay haddaa gudaha tihiin iyo haddaa dibadda tihiinba reer Ingiriis oo aanu qoladaanu ka soconnaa waa laydinku duceeyey madashan waana laydinka ammaanay inaad laabtaan waxqabadkiinnii oo maanta midha dhalay ayaa idinka laydinka rajaynaya qurbaha kale oo dhan looma ducayna Ingiriiska waa loo duceeyey marka ducada aad inoo soo xambaarteen haddaa gudidii Ingiriiska tihiin kuwa kalena waynu la qaybsanaynaa waa maqlayaan iyaguna khayr bay qabaan oo way soo dirayaane waa ka sugaynaa marka waxa igu harsanin waxa weeyaan inaan qayla dhaanta wadada hadday dawlad tahay waa la sheegay anagu waxaan leenahay noo soo dhaqsada waxa la yiri madax sanaday qaadataay sugi kari mayna sanadee dawladdu ha noo soo dhaqsato hay'adda wadooyinku ha noo soo dhaqsato laakiin waxaba xoogeena ka horeeya guduhu waa abaabulan yahay dadka qurba jooga waxaan u sheegayaa wadadii maanta waanu maray waa wada isku joogta caratuurkii wax yar baa ka hadhay waxa laga hadlayaa imika aynu ka ballamaynaa waa laamigii ninkii mari jiray iyo nimaan mari jirinba waxaanu idinku bushaaraynaynaa oo aanu soo aragnay oo la idiin duubay oo telefishinka ka dhagaysanaysaan inay wadadii israacday oo ay qurux badan tahay waxaanu kaloo idinku bushaaraynaynaa wadadaa dadkii gudaha joogay ee ay qusaysay inay ka midaysan yihiin Hargeysa ilaa Buuhoodle oo ay mid ka noqdeen oo qof waliba doonayo maalkiisa magaciisa inuu geliyo taana waa idinku bushaaraynaynaa idina waxaanu idinka doonaynaa sidaas oo kale inaad mid noqotaan inaad israacdaan inaad guntida dhiisha ka xirataan waa soo koobaya arrimaha hore looga hadlay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baad u mahadsantay aad iyo aad Ilyas baan u dhiibaya arinku waa ka kacay dadkii sharafta leh kan isugu yimi habla iyo inamiya uqaal iyo odayaalba wada salaamaya anigoo ku hadlaya qurba jooga dibadda dalka kaga maqan wuxuu yiri amba faydin waxba hay farin haddaanu qurba jooganay anigu horena waa u dadaalayna imikana waanu dadaalaynaa waxa ogaatay inaanu midaysanahay anagu waxa ogaatay inaanu anagu waxa aanu kala qaadnaa ay yihiin wax la bixinayo taa aynu maanta marayna waxa ogaagii naga soo gaarnay way isla ognahay way iswada ognahay waanu bixinaynaa leedii sheeg waana la sheegay waxa la hadii lagu sheegana waa la isheelaa hadii lagu sheegana waa la isheelaa hadii lagu sheegana waa la isheelaaye horta na sheegtay laakiin way sii sheegaynaa waxaan sayidii sheegay qolqol joogo kaalintiina banada taayadu waa buuxda waana buuxsamaysaa ballan baan ilaahay xaqii ma yiraahdo ku qaadayna inay buuxsamayso oo aan ka midaysannahay kaalinteedu waana buuxsamaysaa horena u buuxsami jirtay ilaa iyo Hargeysa waxaan soo dhaxmarayay maal salmadow iyo salmadow meel ba ka buuxdo ma sha Allah maalin ay salmadow ka badan tahay maan arag inta leeyahay nin weyn baana
سلمده maanta aad bay u badan tahay ma sha Allah laakiin waxa idinka yar muuqda maanta waxaan haysanaa inaan oranaysaa waanu haynaa adduunka waanu haynaa waa naga diyaar waxa ay muuqataa deer nooga soo kordhin baxday inaan meelaha ka midi aanay hadeerto wali dadaalkeedu oo qabash yahay taas waa canaantii guud Rubaskin waxa ku dhex jira inta sheegin waxba inoo hagaagi maayaan waxaan idin leeyahay qolqol joogow hal dadaalo kama qaaxiday shubaya haduu ka jaro koobkiisa shaaha wax ka jaro oo islaanta carruurta lixooxda u qoyshaysa wax ka jarto oo islaanta la siiya biilka yari ay wax ka jarto wadadaas way noo dhismaysaa aan dadaalo aan midowno hal qoora oo aan quudno odayga reer miyiga hal qoora wadadaas way noo wada dan waxa lagu xamay odaygu way dul taagan yahay waxaan ku soo ururinayaa war anagu dadaalna dadaala salaamu ala rasuulillah halkan waxaan salaan mug iyo miisaan looga dirayaa dhammaan jaaliyada Solomadow ama qolqoljoog ha noqoto ama qurbajoog ha noqoto iyo deegaanada ku xeeran oo dhan mudane iyo marwooyin dadka sharafta leh isugu cuqaal iyo codkar meel kasta kala joogtaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh marka ugu horeysa aniga ku hadlaya magaca qurbajooga kana mid ahaa dadkii fikradii ka dambeysay maskaxdii ka dambeysay ragii ka mid ahay aan ka joogo maanta oo ay ugu horeeyeen fikradii markii hore la soo jeediyay yaasiin maxamed carbooshe ibraahim dhimiil cali cabdi iyo axmed saciid bootaan iyo anigu cabdullaahi salaam xaaji maxamed oo u jooga maanta qurbajoogii waxaan maanta idiin sheegaynaa qurbajoogeena haddaad tihiin in wixii aynu ku baaqaynay iyo maskaxdii fikradda aynu gelinay maanta inay noqotay waddo dhaba markii hore waxaa naloo arkayey dad waalan inaynu nahay laakiin waxaynu noqonnay dadka maanta miyirka qaba inaynu nagu nahay ayaa maanta naloo qira waxa aynu maanta maraynaa waddadii la mari jiray dhowrka saacadood loo socon jiray oo maanta qof wali u bogay oo laami kama dhacaa oo aynu gelinay wixii aynu gelinay ahayd qarash aad yar oo aan badnayn aynu ku bilownay oo aynu ognahay siduu ku bilaabmay maantana ay tahay meel walba ay wax la dhagax meel dhawuu dhaca dhawaaqna meel dheer waddadii iminka ilaa iyo meel walba waa laga tilmaamay oo ka muuqataa oo marinkeedii maanta wuxuu noqday meel la wada marayo oo ilaa cadhamaydlaa ka yimaada gaalkacyo iyo kiilka shanadba maanta uu marayo oo la isu sheegay taana waxa keenay marka aad wax samaysato waa lagu arkayaa waxaan leeyahay waddadii way noo hirgashay salaanka aynu koray maanta iyo inaan dib uga soo dhicin qurbajoog waxaan idin leeyahay wixeenni way naga diyaar waynu sognahay waxaan fariin baaq aad u dirayaa inta ingiriiska inta kale qurbaa ku nool inay fikradda wada qaataan oo qurbajoog oo dhani waynu sognahay waxba ka xaqran mayne aan kaalmahoodii wada galaan oo sida ingiriisku u bilaabay hawsha idina u bilowdaan والسلام عليكم ورحمة الله رسول الله صلى الله عليه وسلم شركة وحن كل سلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدون يعني وقت اللومية وهاي هذا الكوال اللي يدي نحور كيسي وشددنا وحوي ما أنت فرين هل كان اللي نكون جدنا وبقها هذا الكذب كوال يدي اسكم بدهم بها قلب بها قلب كنا بها حمار سنة وفرين وبها مركب أبوه الرئيسة وحن دعاء اللقبة الشدير كي tabarucaadka ku shaqeynayay ee wadadan iyo wadooyinka loo fara badan oo reer Soomaaliland ba tabarucaad ku suntan ayaa la qabaa ducadii loo duceeyay waxaan leeyahay miisaanadka xasanaadka Allah u saaro waxaan kaloo iyagana u duceynayaa raggii hawshan soo abaabulay ee keenay badalkaba keenay oo ay magaraysaa hormuud u ahaayeen Yaasiin Maxamed Cabdi Carbooshe iyo Ibraahim Dhimbiil iyo saaxiibadooda kale ee anagu labadaas aanu aad u arkaynay guriga imika nagu soo harayna waa la qabaa laakiin qurbajoog wuu farbadnaa laakiin anagu saddexdaan nin baanu aad u arkayn marka iyagana waxaan leeyahay wax wanaagsan bay qabteen ilaahay iyagana miisaanadka xasanaadka oo saara khayraad bay ka shaqeeyeen khayrka ilaahay ma garanaysaa ka jaasa mariyo ujeedadaydu waxa weeye oo halkan maanta imika anaga loogu soo kiciyay hadalka nuxurkiisii waa la yiri hadalkuna ujeedadu wadada un bay hayde ujeedadu waxa weeye si looga wada muuqdo mikrofoonka dadkii inuu hawsha u midaysan yahay ayuun bay ujeedadu xambaarsan tahay waxaan fariin u gudbinayaa dhammaan qurbajooga u dhashay deegaanadan anigu Soomaaliya oran maayo deegaankan waxa dega dad badan baa wada dega oo ma aha Soomaaliya oo qura kuma koobna laakiin waxaan fariin u dirayaa dadka deegaankan buu hoodle iyo ilaa wadaamago dadka u dhashay baan
fariin halkan uga gudbinaya waxaan leeyahay waddadii way dhaqaaqday anigu waa soo marray saako waxaabaa isleeyahay daamurkii oo quraabo haray daamurkii oo rag baabadee ka deyrinayo lahaa sannaday gaadhaysa laakiin anigu waxaabaa isleeyahay bilaba gaadhi mayso waayo garaasiyadooyinkii baabadee saaka maray mar haddii garaasiyada martana waxay la tahay dee laamigii baynu iska dhihi marka waxaan leeyahay oo aan kaga baxayaa gudo iyo dibadba dadka deegaankan u dhashay waxaanu ma garanaysaa ay ku boorinaynaa waddadii inay dhaqaaqday waxaanaanu ka codsanaynaa inay soo dabakaraaciyaan oo si wanaagsan waddada looga qayb qaato dadweynaha kale ee reer somalilan iyagana dee waxaanu ka codsanaynaa annaba waddooyinka reer somalilan waxbaanu ku dari jirrado dee iyaguna inay wax nagu soo darsadaan waanu ka rajaynaynaa dawladdana waanu ka sugaynaa doorkii aanu ku lahayn ee waddada ay ka ballan qaaday iyadana dawladdana waanu ka sugaynaa inay si degdeg uga soo qayb gasho wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa weeyaan waxaanu joognaa waddadii wadaamago iyo buuhoodle u kala baxaysay ayaanu maanta joognaa meesha la yidhaahdo balli madheer baanu joognaa cuqaal iyo codkar iyo xildhibaan midna nooma maqna maanta waddadii ayaanu halka joognaa waxaanu aragnay waddadii oo socota oo bilaabantay oo imaka wejigeedii hore dhammaaday qaylo dheer iyo qaylo gaabanba waxaanu gaadhsiinaynaa dadka waddada u ehelka ah ee deegaanka ah ayaanu gaadhsiinaynaa in tacabkoodii muuqday aanay kala hadhin kordhiyaan ayaanu qaylo dheer u muujinaynaa waxaa kale oonu halkan gubaabinaynaa dawladdu waxay ku dhawaaqday wixii wax qabsada inay ugu darto waanu qabsannay waanu qabsannay haddii dad wax qabsan dawladdu wax ugu darayso annagu waanu qabannay waa kaa muuqda wax weyn baanu qabannay waa la daba joognaa dawladda waxaanu ka codsanaynaa wixii ay ku ballan qaaday inay ku darto oo si dhaqsaa ugu darto ayaanu dawladda ka codsanaynaa dawladdu waa gobolkii ay ka soo baxday ee miisaanka ku lahayd weeyaan waxaa laga sugayaa cad weyn inay ku darsato waddada waa guul weeye guul cid kasta oo waddada wax gashata oo caqli gelisa oo xoog gelisa oo xoolo gelisa oo xigmad gelisa oo xiliyo gelisa oo saxaafad gelisa ilaahay agtiisa guri looga dhisaya baaq dheer iyo mid gaaban waxaanu diraynaa guul waddadaasi mid guuleed bay noqotay mid nabadeed bay noqotay mid mucjisana bay noqotay waxaanu leenahay cid kastay waddadaasi waa socotay ka qayb gala khayr badan karaamo ducaanu raacinaynaa waa guul weeyi salaam calaa rasuulillah sala allahu calayhi wasalam aad iyo aad baa dadkan meesha isugu yimi iyo kuwa maqanba aad baan ugu mahadnaqayaa uguna ducaynayaa intaa waxa dhaabsiisan oo aanu ku hadlaynaa waddada markii la bilaabayay waxaanu islahay war tow raggan bilaabayaa miyay riyoonayaan mise waa ka dhab dhowr jeer oo la isku dayo ay ka dibtayna waa jirtay waxaanu maanta idiin sheegaynaa in maanta alla aqbalay ay socotay qurux badan tahay hirgashay dadkiina niyeeyey waddada inuu sameeyo qalbiga ka keenay rag iyo dumar dhallinyaro iyo waayeel codkar iyo cuqaal nin taajir iyo nin faqiiraba niyada la isugu keenay intaasaanu idiin sheegaynaa halaysdaba ka raaciyo dareerta wuxuu dabaadiga harayaani kugu digan wasalaamu calaykum kelmadana waxaan u dirayaa dawladda aynu doorannay qurba joog waa ka qayb galay oo waa hadlay qolqol joogna waa hadlay haween waa hadlay shicibkan wuu ku tashaday waddada inuu sameeyo kelmaddaa waxaan u dirayaa dawladda aynu doorannaye dee dawladayn wasiir baanu weynay yaanaan waddo waayin annagu waxaanu weynay wasiire yaanaan waddo waayin reer kasta oo wasiir qaatay waa in waddada iyadoo ay ka horraysaa waayo waannu ka mudannahay wabillahi tawfiiq wasalamu calaykum talaanta islaamka dadka kale ee naga maqan ee dibadaha iyo gudahaba joogana waxaan u dirayaa salaanta islaamka farriintii waddada way dhammaatadoo malaa iyada muugaalkeedana waa laydin tusi warkeediina waa haysaan anigu laba qolaan mid walba kelmad odhanaya hal waa mida dawladda nin baa i xaday wixii aan isdhahay intii yareedee dhibiiqa ahayd ee aan isdhahaa la hada dawladda muuse biixe uu ugu sarreeyo waxaan leeyahay muuse biixow madaxweynow weynay wasiir
waddada yaanaa waayin ilaah baan kugu dhaariyey yaan axdiga ku qabanine axdiga ilaahay ku qabay haddaad noo dhammayn weydo waanad noo ballan qaaday dawladda kelmaddaasaan odhanaya nimanka la yidhaaha reer buuhoodana erey baan odhanaya wixii waddadii way baxday waana baxaysaa anigu jiif caaqilkii solomadow baan ahay cali aadan afkoorale wixii laydinka haddabal ogaada wax allaaliyo waxay waddadaa laydinku yeela anaa bixinaya anigaa layskatana aaminoo waddada soo mara waa waddada nabadda erey kalena waa odhanaya waa laysdhacaa erey baa laygu dhacay aniga waddadaa aynu maanta joogno ilaa qorilugud ilaa naasa hablood anaa bixiyey war ma been baan sheegaya gaadhigaygii casaabaan ku bixiyey oo ku burburiyey wax sheegana lama hayo muusub baa loo tiriyey yeerkeeda ilaahay waxma dafiro ilaahay baan ka sugaya abaalkeeda intaana waa idin idhi ha la dhammeeyo waddada waxaan leeyahay dadka shacabka ahi meel kastaba ha joogo dadka shacabka ahow warna meel fog buu tagaa baa la yidhi dhagaxna meel low waxaan leeyahay waddada ha loo soo jeesto waxaan leeyahay waddadu waa tii nabadda waa jidkii nabadda waa jidkii nabadda ha lagu soo dhowaado qolo waliba ha ku soo dhowaato wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baad umahadsantahay caaqil